ciidamada Ruushka ayaa u muuqday in ay gaareen waqooyiga magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine xilli maalintii labaad uu socdo duulaanka Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine. muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya gawaarida gaashaameen ee Ruushka oo ku sugan gudaha degmada ku taala waqooyiga Kiev ee Obolon. waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in dagaal uu ka socdo waqooyiga magaaladaasi, waxaana mas'uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in ciidamada Ruushka ay halkaasi soo galeen. ciidamada Ukraine ayaa dumiyay buundo ku taala waqooyiga Kiev si ciidamada Ruushka ay u hor istaagaan inay gudaha u soo galaan magaalada caasimadda ah. wararka arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Fartuun Ismaaciil. dagaal ayaa ka dhacay garoon ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala duleedka magaalada Kiev. waxa ayna halkaasi noqon kartaa meel ay ciidamada Ruushku kaga soo dusi karaan magaalo madaxda kuna qabsan karaan caasimadda Ukraine. ciidamada Ruushka weerarkooda ayaa Khamiistii ku bilowday dhowr jiho kadib markii ay dhinaca bari waqooyi koonfurba ay ka yimaadeen. duqaymo xoog leh ayaa ka dhacay Kiev. ugu yaraanna mid ka mid ah guryaha waaweyn ee halkaasi ku yaala ayaa si xun loo waxyeeleeyay, waxaana ilaa iyo xalay gudaha magaalada laga maqlayay duqaymo. sidoo kalena dhinaca waqooyi ee Kiev, dawladda Ukraine ayaa digniino ku bixinaysa in laga yaabo in kuwa la shaqaynaya Ruushka, waa sida hadalka loo dhigay, laga yaabo in ay gudaha magaalada madaxda Kiev ku jiraan. wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in midowga Yurub ay doonayaan in ay go'doomiyaan Ruushka dhaqaale ahaan, iyagoo taas uga jawaabaya weerarka ay ku qaaday Ukraine. Master Le Maire ayaa sheegay in midowga Yurub ay doonayaan in ay jaraan dhammaan xiriirada u dhaxeeya Ruushka iyo hannaanka dhaqaalaha ee caalamiga ah, oo ay ku jirto in Ruushka laga xayiro hannaanka bangiyada caalamiga ah. Nous continuerons le temps nécessaire pour faire plier l'économie russe. waan sii wadi doonnaa ilaa inta laga wiiqayo dhaqaalaha Ruushka iyo hogaamiyayaasha siyaasadda iyo dhaqaalaha Ruushka. marka hore waxaan cunaqabateyn ku dhufan doonnaa dhowr qaybood oo muhiim ah sida gaadiidka, samaynta diyaaradaha iyo dhammaan teknolojiyadaha, kuwaasi oo xasaasi u ah dhaqaalaha Ruushka. waxaana ku xijin doonnaa nidaamka maaliyadda ee Ruushka. sidoo kale waxaan cunaqabateyn ku dhufan doonnaa bangiyada Ruushka. waxaana doonaynaa inaan jarno dhammaan xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo nidaamka maaliyadeed ee caalamiga. Nous voulons couper tous les liens entre la Russie et le système financier mondial. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay weerarayaan dadka rayidka ah iyo bartilmaameedyo militari. wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in 2 caruur ah lagu dilay markii ciidamada Ruushka ay duqeyn la beegsadeen in ka badan 30 goobood oo rayidku deganaa 24 saac ee la soo dhaafay. horey ayuu Mr Zelensky u sheegay in 137 reer Ukraine ah ay ku dhinteen maalintii ugu horeysay ee dagaalka, waxa uu amray in dadka ay ka baxaan goobaha la bartilmaameedsanayo. way madsantahay Fartuun Ismaaciil oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. arrimaha dalka Ukraine ayaa wali ku jirnaa qaxooti aad u tiro badan oo rayid ah oo reer Ukraine ah ayaa waxa ay haatan u socdaan dhanka wadamada dariska ah iyagoo ka cararaya duulaanka ciidamada Ruushka ee ku siisiqaya gudaha caasimadda dalkaasi. dawladda Hungary waxa ay sheegtay in safaf dhaadheer ay arkayaan xuduudda oo ilaa iyo 5 kiiloomitir baabuurta ay saf ku jiraan, kuwaas oo ah dad doonaya inay u soo tallaabaan dhanka Hungary. Polandna waxa ay sheegtay Khamiistii oo kaliya 29,000 oo qof oo qaxooti ah inay xuduudda ka soo tallaabeen. dadkaasi oo dad aad u tiro badan marka loo eego maalmaha ay colaadda socoto. dadka qaxaya ee Poland ku sii jeeda waxaa ka mid ah qoysas iyo dhalinyaro iyo dhakhaatiir Soomaali isugu jira oo dalkaasi ku nool, qaar wax ka baranayay qaarna ka shaqaysanayay. waxaa ka mid ah ninkan oo isaga oo basaaran oo xuduudda sii galaya aan goordhaweyd la hadlay. magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Fariid. Cabdiraxmaan, xagee baad ka soo qaxday oo haatan xageen igala hadlaysaa? iminka aniga waxaan ka mid ahay ardayda ku nool Ukraine, khaasatan caasimadda Kiev. waxaan ka soo baxnay ama ka soo qaxnay aagga oo dagaalada ka jiraan. iminka waxaan ka soo dhaqaajinay Kiev, waxaan u soo baxnay magaalada la yiraahdo Lviv. maxaa ka jira magaaladaasi iyadoo colaadda ma saameynin miya? in badan sidaa ogtahay waddanka sidiisa guud colaaddu waa mid wada saameeyey, laakiin meesha ugu roon oo iminka marka loo fiirsho khataraha kale way ka dhaantaa, yara dhaantaa. fursad labaadna waa ay leedahay oo waxay u dhowdahay dhanka iyo wadamada Yurubta ama si kala daan u dhigo waqooyi galbeedka. taasaa keenaysa ka yara fursad fiican tahay oo sida dowladda Poland oo kale xuduudda leedahay. baskaad saaran tahay Soomaali badan ayaa kula saaran, qoysas miyaa ku jira? si fiican Soomaali badan ayaan u soo baxnay Kiev, ilaa dhowr bas oo gaari ayaan kusoo kala dhaqaaqnay.
gaari hadda aniga aan saaranayo gaari u dambeysa aan ardayda iyo dadka familka iyo aan kusoo baxno waayo ku dhawaad 50 qof aan ku saarana kharashka aad ku safraysaan marka ma idinka iska bixinayo amnigana see waayo jidka aad qaadaysaan marka la fiiriso sida guud maadaama ayadoon la filinayn si degdeg ay wax ku dhaceen waa dareemi kartaa masaafo oo caasimada 15 milyan qof ku noole hal mar haddii la yidhaha jidka oo markiisa hore safarka iska yaraha lasoo galo jaamkee badnaana meesha 6 hour ama 5 hour lagu imaanaya inay noqoto 10 hour 12 hour jidka inay qaadato marka qarashkana individual qof walba asiga iska bixinayo ma jirin ama hay'adda caawisa ama dawlad ama safaaradda caawisa ma jirin caasimadda aad ka soo tagtay Kiev maxaad ku tilmaami kartaa sidee bay ahayd horta markii hore si guud caasimadda ammaan ay ahayd marka laga reebo last 4 days hourska oo maalinta khamiista ah markaas ay ugu horeysay dadka ayaga si nabada ku wajiif ayaa habeenkii madaxweyne ku soo dhacday qayb ka mid ah caasimadda subaxaas wixii ka dambeeyay dadkii go'aan ay qaateen oo ahayd subaxda khamiista sidaas ay ku soo baxeen ilaa habeenkii jimcaha waxa la ka ahayd ilaa maanta sidoo kale qaybta labaad masaaka ahayd oo qayb ka mid ah duqeymo loo geystay gaar ahaan xarumaha dawladda ama qalama xarumaha ciidamada ama aeroboorada kaas waxa waa arday Soomaaliyeed oo caafimaadka ka barta dalka Ukraine oo ka qaxay magaalada caasimadda ee Kiev una socda dhanka iyo xuduudda dalkaas uu la wadaago Poland isaga oo basaaran oo qaxay ayaan dabcan telefoonka kula hadlay